بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan rabaa inaan hambalyo u diro ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliyeed walaalkay saaxiibkay qaaliga ah ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo caawa loo magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliyeed. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madaxweyne Farmaajo mar walba bulshada Soomaaliyeed wuxuu jecel yahay inuu raala gareeyo oo runtii qofkii ka darnaa ama qofkii ka wadanaysanaa inuu soo saaro bulshada Soomaaliyeed yani qulubteedu inuu ilaaliyo way ka go'an tahay. madaxweynaha inkastoo la hareereeyay inkastoo cadow fara badan geesaha ka istaagay aawayto wuxuu ku guuleystay inuu magacaabo injineer Maxamed Xuseen Rooble inuu u magacaabo ra-iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed oo runtii aan aqaano Maxamed Xuseen Rooble aan ku ogahay nin karameednimo wadaninimo in muddo aan soo wada shaqeynay haddana u shaqeeya hay'adda ILO International Liberation muxuu ahaa International Labour Organization hay'adda la yiraahdo waqtigan xaadirka ah uu shaqaale ka ahaa. Maxamed Xuseen Galmudug ayuu ku dhashay. waa nin aad iyo aad u akhlaaq wanaagsan, waa nin dhowrsan, waa nin nadiif ah, waa nimaan af ku dhiig lahayn, gacan ku dhiigla aanan ahayn. runtii waad iska fahmi kartaan koonfurta gaalkacyo ayuu ku dhashay. injineerku runtii jaamacaddiisii hadduu ilaahay ku roon yahay waa wadanka Malaysia. waxbarashadiisii heerka labaad ama heerka koowaad iyo labaad jaamacadda Malaysia Kuala Lumpur uu kasoo qalinjibiyey. haddii aanan qaldanayn inkastoo in muddo aan ismoogeyn injineerka fadhigiisa magaalada Nairobi buu ahaa waqtigii hay'adda caafimaadka adduunka aan u shaqeyn jiray ee WHO. waxay saaxiibo dhow ay aad iyo aad u soo wada shaqeeyeen injineer Madoobe oo kasoo jeeda koonfur galbeed oo waqtigan aniga hay'adda WHO aan u shaqeynayay. waa nin dhowrsan oo aad iyo aad u wanaagsan, aadaab badan oo wadani ah oo runtii jecel horumarka ummadda Soomaaliyeed. ma aha nin runtii maantayto ama la isdhihi karo waa nin runtii la dhihi karo waa garab wanaagsan oo madaxweynaha Soomaaliyeed maantayto wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala makaniyey ra-iisul wasaare u qalmo koonfurta magaalada gaalkacyo. marka waxaa hubaalaa insha allahu tacaala dalku inuu u dareeri doono doorasho qof iyo cod. wixii maanta la sheegayna aysan waxba ka jirin. waxaan rabaa shacabka inaan u sheego mar kale wixii maanta la isu sheegay ama lagu wada hadlay waxba kama jiraan waay. dalku xukuumad kama jirin, ra-iisul wasaare ma lahayn. haddii maanta waxaa ilaahay mahaddiisii ah mudug haddii maanta galmudug ay heshay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya markii horena qoorqoor meesha uu joogay wadanka waqtigan xaadirka wax walba xor buu ka yahay. waxaad moodaa wadanku Soomaaliyeed rajadiis inay soo laabatay. gabalkii Abu Dhabi inuu dhacay, gabalka Kenya inuu dhacay. maxaa yeelay bini aadamka sidiisaba waxaa wax loo dhiibtaa qofka bini aadamka qof go-aan adag leba wax loo dhiibtaa. qoorqoor waa nin adag waay, nin aad iyo aad maantayto la isdhihi karo sheergareey barnaamijku. galmudug baa ra-iisul wasaarihii heshay, galmudug baa heshay. Aranjan marka waxaan leeyahay maamulkii Aranjan oo dabaaldegii caawa aad wadeen waxaa ka daba yimid ra-iisul wasaare koonfurta gaalkacyo ka yimid baa yimid.
waxaad moodaa reer galmudug inaysan dalna iibsanaynin dadna iibsanaynin keliyaha dadkana aysan iibsanaynin ay yihiin dad soomaalinimadoodii dhab ah. madaxweynaha soomaaliya maasha allah, ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre wuu soo dadaalay, meel wanaagsan buu wax soo gaarsiiyey, beddelkiisii baa la helay. waxaad arkaysaan waqti hore sawir ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu la galay baan idin tusaya, ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen. waqtigaas isagaa wasiirnimuu raadinayay. ra-iisul wasaare khayre ayuu cv u keensaday, laakiin ra-iisul wasaaraha wuu ku gacanseeray maxamed xuseen, wuu iska samray. isagaa ra-iisul wasaare dalka ka ah. maxamed xuseen waa kan shaatiga jaallaha waay, manaa binkiga shaarkaas aad u jeedaan waa ra-iisul wasaarihiin cusub waay soomaaliyeed ee wadanka soomaaliya. ya labadan wiil oo dhalinyarada abu cv-yay keensadeen, ra-iisul wasaaraha qaranka soomaaliya cv u keeneen. ma garan karo de wixii waa waqti cariiri baa lasoo maray. ra-iisul wasaaraha cv-goodii waxaad moodaa inuu yacni iska tuuray. ra-iisul wasaaraha qaranka soomaaliyeed hore waa kan xasan cali khayre, ma soo dhaweynin cv-yadii loo geeyey. laakiin waxaan waa nasiib waaye. waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha qaranka soomaaliyeed hambalyaan leenahay. maxamed xuseen soo dhawow waan ku leenahay. waxaad ku soo dhawaataa waddan jahwareersan, munaafiqiintiis badatay, oo runtii aada isleedahay yacni dulaaliin iyo tuugo iyo ma arkino muxuu ahaa mercenaries dal ku badan baad ra-iisul wasaare u noqotay. arrimo culeysyo fara badan baa ku horyaallo. had iyo jeer waxay ku xiran tahay wasiirada adiga aada soo dhisi doontid. si fiican ii dhegeysto, qof allaale qofkii u dhown hagaasiyo ra-iisul wasaaraha cusub lagu ataaj gareeyo. keliya talada wax taraysaan rabaa inaan u sheego hadduu ilaahay idmo. ra-iisul wasaare, nin cusub baa tahay, buuggaagii waa nadiif, kaararkaagii waa nadiif, sumcaddaadii waa nadiif. nin nadiifaad tahay oo caawa dhashay baad lamid tahay. dal dembi laga galay, adow hareereystay ayaad u timid. keligaa wax ma qaban kartidee wasiirada ama xukuumadda adiga aada soo dhisto ayaa dalka iyo dadka iyo diinta badbaadin doontaa. waxaa waaye nin walow ra-iisul wasaaraha caawa ku agdhow. aniga ra-iisul wasaaraha si fiican baan isu naqaanaa, wuuna ii yaqaanaa. u sheegay gurmud qaran baa salaan kaliyo laab hawada kuu soo marsiinayaa baad leedahay. waxaan u sheegayaa ra-iisul wasaaraha, mudane ra-iisul wasaare, waxay ku xiran tahay xukuumadda adiga aada la timaadid. haddaad la timaado xukuumad in adeer kuu keenay, saaxiib, qaraabo, ehel, musuq maasuq, maarkano koonto hebel, reer hebel koontadoodii waaye, qabiil hebel baa wasaaradda iskale, reer hebel baa sidaana. haddii laguu keeno waxaad noqon doontaa xukuumaddii ra-iisul wasaare khayre wasaaradihii joogay baa curyaamiyey. ra-iisul wasaare khayre nin karti badan oo dadaal badan oo bani aadam intuu dadaali karo ayuu dadaalay, laakiin xukuumad la-aan baa ku dhacday. dad wuxuu soo aruursaday ama loo keenay handicabris ah, dad wada curyaamiin ah, waxna qorin waxna akhrinin ayaa wasaaradihii loo dhiibay. ra-iisul wasaaraha haddii marka gamuun baa layidhi, gamuun bahalka layihahdo, gamuun waa taqaanaa, baal la-aan ma biibo. haddaad adiga gamuunkii aad tahay, baalal aadan lahayn meel aad gaaraysid ma laha. waa fashilmaysa mudan ra-iisul wasaare. waxaan kaaga digayaa waa inaad ka fekertaa xukuumadda aada soo dhisi doonto, wasaaradaha aada soo dhisi doonto waa inaad ku salaysaa wasaaradaha qofka wasaaradda loo dhiibayo aqoonteedii miyuu leeyahay, cilmigeedii miyuu soo bartay, cilmigeedii miyuu soo bartay. baabuurku xoog laguma wado ra-iisul wasaare, xoog ma aha. baabuurtan la kaxeyn aad u jeedo xoog laguma kaxeeya, tab iyo garasho iyo xeelad baa lagu wadaa.
baabuurka qof aan daraawal helin ma wadi karo. waxaa loo baahan yahay wasaaradaha aad soo magacaabi doonto ayay ku xiran tahay. waxaa kaloon talo kugu siinaya mudane ra-iisul wasaare, ra-iisul wasaaraha cusub, xukuumaddaada dhiig cusub ha noqoto. haddii kuwii maantayto jooga aad soo celiso, waxaan kuu sheegayaa in xaaladaadii xumaan doonto. waa dad aan laisku hubin waayo, meelay kaa jiraan ma ogaan kartid, waxay yihiin ma ogaan kartid. waa inaad of tiraada ra-iisul wasaare wax allaale wixii wasiiro ahaa ama ku-xigeeno ahaa ama wasiiru dowliyeel ahaa oo dhan waa inaad bannaanka aad iska geysaa. nin cusub baad tahay, dad cusub baad u baahan tahay. ummaddan way soo daashay, ummaddan way soo baaba'day, ummaddan wasaaradaheedii geedaha ka baxay. wasaaradda waxaan ka digayaa weliba sida wasaaradda xanaanada xoolaha maanta soomaalida qabiil unbay u tacasubtaa. nin in adeerkaygiibaa fadhiyo oo wax kale iska daaye qashinkii iska qaadi waaye wasaaradda horteeda yaalay. handakaabir ah, xanaanada xoolaha dhirtii daaq oo kale xuseen badni baa meeshii wasiirka ah. waa ceeb iyo fadeexad. waxaan u baahannahay mudane ra-iisul wasaare wasiiro tayale la imow, sida ugu dhaqsiyaha badanna madaxweynaha Soomaaliyeed iyo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed mursal iyo cid walbo oo waqtigan xaadirka 4.5 u taagan ka codso dadka bixi karo, kula jaan qaadi karo, dalkan doorasho qof ay cod gaarsiin karo, bulshada Soomaaliyeed daacad uga adeegi karo oo aan la iibsan karin, dalka ka shaqaysanayna u shaqayn doono, oo dalka inuu asaga dhaqaalo aruursado ama guryo ka dhista aanan rabin. dadka noocaas oo kale ah oo daacadda ah oo aakhiro xisaabta ka baqayo inaad wasaaradahaagii keentid baa loo baahan yahay. anigana waxaan ogeysiinayaa bulshada Soomaaliyeed, musharax wasiir baan ahay, afkeygii baan kala furtay. shacabka villa Soomaaliya joogo, madaxda villa Soomaaliya, madaxweynaha ugu horeeyo, mudane madaxweyne dalka garab buu u baahan yahay, badbaadu u baahan yahay. hadday bahashu ay tahay 4.5 beesha aan ka dhashay oo degmada Diinsoor ku abtirsato, beesha maanta ito runtii baaba'san, go'doonsan, deegaanadeedii argagixisada ku ilmo dhashay, oo dalka Soomaaliyeed meesha laga soo weerarana nawaaxigaas koonfur galbeed uu yahay. anigoo reer koonfur galbeed ah, musharax xildhibaan baan ahay oo nabad iyo nolol ah. halgankaygina eedaan u sheegay ma lahan. haddii afkaygii iyo difaacii dalkayga aan wax ku waayo oo muxuu ahaa la ii yiraahdo meesha ma jooge bal dad kale meesha ha la keeno, haddii ay noqoto aniga kolba dalkayga inaan u adeega mar walba diyaar u ahay. madaxtooyada Soomaaliya waxaan u sheegayaa agaasimayaasha, madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed, guddoomiye mursal, inta danta ummadda Soomaaliyeed mar walba ka fakarayso, musharax wasiir baan ahay insha allahu tacaala inaan dalkaygaan u adeego. mushaarkaygiina waxaan ugu tabarucay 75% ummadda Soomaaliyeed inteeda taagta daran baan ugu talagalay. laymana siinaayo, akoonkaygina laguma soo shubaayo. waxaa la siinayaa dadka tabaalaysan ee masaakiinta ah. 25% keliya ayaan u baahanahay aniga. alxamdulilah, nolol wanaagsan baan haystaa, dhaqaale inta ilaahay isiiyey waan haystaa, nin isku filin baan ahay. 25taas soo hartan waxaan ugu talagalay shaqaalahaygii inaan siiyo ayaan ugu talagalay. mashaarkaygii 75% ummadda Soomaaliyeed waxaan u ballan qaadayaa inaan siin doono, ku bixin doono haddaan wasaaraddaas aan qabto. shacabka Soomaaliyeed baan siinayaa oo masaakiinta ah, oo taagta daran, ilmaha iskoolka u baahan, caruurta agoomaha ah, hooyooyin garoobada ah, curyaamiinta, dadka xanuunsan ayaan ugu talagalay. ayagaan siinayaa. haddii wasaaradeyda aan helo
أجر هذا وساردي إذا أنا هلو وساردي إلهي المخاطة كله وسقط ذهبي نمو والله وحن قلت لقلي إن أمد الصومالية ده تاك تدرن إن كنت بالرؤى يعني قلت لقلي مرة بين نقولي كدستو مرة بين هنتي كويشو مرة بين دلكي جبابو مرة بين أمد ديدي أو باهن إن أنا قدرجو إذا ما ده حقوق الدلك الصومالية بكتب أنا قلت لقلي مشاركيجي بقول كي باللباتني شنم كله يعني كبدن أكون كي لغوم صوت دريكرو وحنا جيسينا يا مدح القرنك وحنا جيسينا يا وسارة المالية بلنقات كاس بنديار أنا واحد ميس كان صارنا تلكيجي أنا وأديك الربا تلكيجي إن أنا وأديك سيدا عد أيان ربا قدوميها برلمان كالصومالي المدني محمد مرسل عن قعد سنة maadaama aad tahay koonfur galbeed ninka keliya maanta contacti u ah waxaan kaa codsanaya mudane gadoomiye adduunyada waxaa la yidhi waari maysay war ka haro kursigan sidaan uma saarnaan doonto maantayto umadaadii deegaanka adiga aad u dhalatay u heeli calooshii aad horay meesha aad ugu soo aruurisay calool bad meesha koonfur galbeed waxaa wasiir u ah calool meel taalo wasiir malahan waxba malahan waa alif wax malaha waa dadka baaba maanta haysto waa ayaga shabaabkii ayaga dhexdooda bay ku jiraan wax maanta to ka dulqaad haba yaraatee malahan hal doorkoodii oo dhan ba iska ilaaliyaan gadoomiye waxaan rabaa dhinaca kale inaad arrinta u rogtid oo aad arrintan caawayto wasaaradahaas aniga ma qarsoodi waxba kuma raadinayo haddaad ii diidaanna alxamdulilah rabbil caalamiin culays baad iga reebteen madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye muudey taliyaha nabad sugidda Soomaaliyeed Fahad Yaasiin culays baad iga dejiseen haddaad ii doorataan oo aad ii magacaawdaan nomination aan noqdo oo qofna looga heebeysan gurmad qaran miiska la soo saar aad tiraadaan aniga dalkay waan u adeegi haddaad ii diidaan sidaan baan dalkay ugu adeegi doona maalin quraan laalush ma qaadan doono dalkaygii baan diyaar u ahay ra'iisul wasaaraha kula taliya wasaaradaha miiska saaran ragga soo barbowsal gareeyay inaan kamid ahay ra'iisul wasaaraha wasaarad walba aniga lii dhiibana in ay noqon doonto wasaarad ka tilmaaman yani muxuu ah wasaaradaha kale hadduu ilaahay idmo kartideedii baan leeyahay aqoonteedii baan leeyahay cilmigeedii baan leeyahay waxqabadkeedii baan leeyahay nin qarsoona ma ahi inkastoo aniga aan jeclaan lahaa wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliyeed si 6 bilood gudahoodii dalkan Soomaaliyeed aan ugu soo ciribtiro argagixisada ummadda Soomaaliyeed kala xirxirtay 6 bilood 180 days Soomaali free bay noqonaysaa argagixisada xaggeeda waxaana tusi doonaa shacabka Soomaaliyeed oo u sheegay ra'iisul wasaaraha cusub istaraatiijiyadaas ayada already waan diyaariyay anigoo la kaashiday si ma arkino saraakiil u dhalatay wadanka Algeria saraakiil u dhalatay wadanka Afghanistan saraakiil u dhalatay wadanka Syria iyo saraakiil fara badan iyo kuwa aan la sheegaynin oo la kaashiday istaraatiijiyadii al-shabaab qoryaha madax intay soo saartaan ayagoo qoryahoodii madaxooda ay ku wataan 6 bilood gudaheedii wixii soo haro inay magaalada si toos isu soo dhiibaan istaraatiijiyadii horeyna waan u sheegay ra'iisul wasaarihii hore waa la wadaagay laakiin wax ka faa'iideystaan waaye wax iga faa'iideysto cilmiga la dagaalanka argagixisada caalamiga ah wax ka faa'iideysto Soomaaliya oo wax garto ayaan waayay maantana waxaan diyaar u ahay marka insha Allah ta'ala xil kasto la ii dhiibo jagad kasto la ii dhiibo markaan jagadaas aan qabto waxaan tala siin doonaa wasaaradaha kale ee talada u baahan wasaaradaha kale aan tala siin doonaa haddii wasaaradda amniga aniga markaas aanan haynin haddii wasaaradda gaashaandhigga aanan gacanta ku haynin talooyinkii istaraatiijiyadii dhan baan siinayaa qaabka loola dagaalamay al-shabaab oo isu soo dhiibayaan wixii haro qaabka loo ciribtiro way fududahay waa 180 days dalko xur ah
ma garat waa 6 bilood waay waa 6 bilood shabaab haddii dalka laga qabtana dalka waa degaya ummadda way degay dalku wuxuu noqonaa dal barwaaqo ah ma garat istiraatiijiyadaas ayada ana istiraatiijiyadihii lagu dejiyay waddanka Algeria oo dhibaato ba'an soo maray lagu dejiyay waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa oo caawito aan ka codsanayaa war hal igu tijaabi wasaaraddaas marqura oo Soomaalida ay helayso oo sawiradeed intaad qaadaan wasaaraddaas gaashaandhig gurmud qaran ha loo dhiibo intaas bis inaad dhaxdaan caawito oo sawirada aad faafisaan twitterada aad ku qortaan facebookida aad gelisaan si dalkiini nabad u noqdo haddii shabaab la idinka qabto dalkiini idinka xukumi doono laakiin intii dalkiini shabaab gacanta ay ku hayaan dalkiini idinka ma leeyihiin waa dal wuxuu noqonayaa bahalgalayn ah wax allaale wixii la doonaa lagu samaysanayo magar sidaas daraadeed waxaan codsanayaa shacabka Soomaaliyeed oo daawanayo nin waliba meeshaad joogtid kii ducada awoodo midkii text message madaxweynaha u diri karo kii ra'iisul wasaaraha ku agdhow u sheegi karo war gurmud qaran number 1 wasaaradaha nomination ha noqdo degmada Diinsoor u dhashay handa kaba wasiirka waqtigan xaadirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Xuseen Badni reer adduunyo aanan ahayn maalintii wuu hurdaa habeenkii wuu soo jeedaa Xuseen Badni habeenkii waxaa shaqeysto jiniga shaqeysto waxaa shaqeysto uun hoosaadka iyo masaska ayaa habeenkii shaqeysto dal maalin baa loo shaqeeyaa Xuseen Badni maalintii wuu jiifaa wasaaraddiis baahi baa looga baaba'ay wasaaraddaas xanaanada xoolaha ayuu ku fadhiyaa wasaaraddaas ayaan danaynayaa haddiiba kuwa kale ay suurtagal ay noqon waayaan ra'iisul wasaare waxaan ka codsanayaa cusub ee caawito yimid in uu tayeeyo hadduu ilaahay ku roon yahay wasaaradihiisi dad tayela inuu meesha keenaa loo baahan yahay aniga shabaab 9 xabood bay ugu dhufteen aqoon dheer baan u leeyahay qaabka loola dagaalamana waxa alxamdulillah waxaan u galay juhdi badan baan ku bixiyay qaabka u argoosan lahaa dalka Soomaaliyeed aan ugu xureen lahaa hadday Soomaaliya hadday ka faa'iideysto insha Allah ta'ala aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan u hambalyeeyaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliyeed mudane Maxamed Xuseen Roble hambalyaan ku leeyahay anigoo ah gurmud qaran Ismaaciil Booliyo waxaana ku noolahay waddanka Sweden insha Allah ta'ala gud iyo gobinimo aan ku rajaynayaa waxaan sugaynaba wasaarado tayo leh iyo fariinteedii markay ku soo gaarto adigoo si qoto dheer u dhageysta insha Allah ta'ala waad mahadsantiin insha Allah ta'ala ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay loo duceeyo ra'iisul wasaaraha cusub Soomaaliyeed ha loo duceeyo duco ayaa wax tarto insha Allah ta'ala 3 sano ha joogo ama sanad ha joogo qof duceysan baa caawito Soomaaliya ra'iisul wasaare u noqday oo xalaal miirad ah qof duceysan xalaal miirad ah oo wanaagsan sawir bari samaadkii aan ka qaaday baan rabaa inaan idin tuso intuusan waxaan oo dhan bari samaadkii sawir baan rabaa inaan idin tuso hadduu ilaahay idmo sawir baa jiray oo bari samaadkii waqti aan haddaba ahayn waqti fog aan ka qaaday baan rabaa inaan idin tuso insha Allah ta'ala wallahi maxamed muuse isoo wacay maxamed muuse in la waco mudan yahay gudoomiyaha bagu dhulku ku hayay marka wasaarihi Soomaaliya السلام عليكم قدوميه وعليكم السلام صاحب جماعه يا وكا عذر دارتي وان دالنا واي waxa ka soo baxay safar wafdii iyo hawlihii waxaad sugaysay magacaabista ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed oo galmudug ka soo jeedaan u maleynaya wallahi wad faantay aad iyo aad wad faantay maya anigu galmudug inuu ka soo jeedo ma sugayne laakiin waan sugayay si roose wafdida ay sheegtay waa gartay qadoomiye waa gartay waftiga ii sheegay marka waa sugaynay mar wanaagsan bay ku soo dhacday horta ma live baan nahay mise waa ka baxan live baan nahay 400 ruux ku daawanayso
وهو وليدي ودي شيء لهيدي دمان waxaan salaamaya marka hore shacabka Soomaaliyeed ee daawanaya dhamaantood horta salaaniga gudooma waxaan idin sheegayaa horta maanta baroor baa naga dhamaatay aad baan u baroornay Soomaaliya ismaa absolutely laakiin waa degnay alxamdulillah waa degnay hadda horta baroorta waan idin kula jiray absolutely waan idin kula jiray inkastoo dalana oo aan wafdidii galmudug ay soo gaadhay arrimaha dikada u timiday aan maaragtay kusoo daalay waan iskula jiray baroorta maaragtay waan aad iyo aad laakiin maanta hadda warka aan maqlay markii lay sheegay wallahi billahi farxad baa dilaaci gaariba ra'iisul wasaare haddii la magacaabay micnaheeda shicibka waxaan sheegaya micnaheedu wixii meesha la qorqoray waxba kama jiraan wey horeen waan ugu sheegay uu sii dhamaystir say u aaminaan ku soco waxba kama jiraan weeye sababtoo ah maamul baa imika imaanaya maamulkaasi waxay u baahanaysaa maamulka baarlamanka la geyn doonaa baarlamanka intii la geeyona waqti bay qaadanaysaa inay soo ansixiyo baarlamanku yidhahdo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada la keenay waanu ansixinay inta aan la gaarinba October baa lagu jiraa intuu ra'iisul wasaaruhu soo xulanayo wasiiradiisa October baa la gaaray inta October lagu jiraa baarlamanku waa khasab in uu isa sharci gareeyo oo extension isu sameeyo laftiisa waa kow marka ugu horeysa absolutely farmaajo waxaan congratulation aan leeyahay horta wasiirka ra'iisul wasaaraha aad galmudug siisay aad iyo aad waxaanu jecelahay maanta inaanan noqon 4 bilood oo ku meel gaadhay laakiin labada sano ee lagu dari doono extensionka in aanu ahaano aadna kula shaqeyno ayaanu aad iyo aad ku soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub Mr. Roble aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed saad sheegaysaba gudoomiyay cadawga hareereeyay Kenya ayaa waxay sugaysay in maaragtay farmaajan sugaynaa inuu naga markuu tago ayay waxagaagayaan wareedda ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay bal bilcakis cadawga waxay ka naxaan si u naxaan farmaajo waa joogaya halan farmaajo waa joogaya soo maagan absolutely kaliya si cadawga looga naxiyo marka waxaan leeyahay horta ra'iisul wasaare cusub ay gudday ummadda Soomaaliyeed waxaan sheegayaa wixii la soo walwalaaqay la soo qorqoray maanta 15 qodob ee la soo qorqoray ee dadka dhan ka baroorteen waa sax inay ka baroortaan absolutely aniga ugu horeeyay oo calool xumo la seexday soo madin kara waxaan idin sheegayaa waad ka bogsanaysiin كل واحد مالنا يا مدحوين فرماجو وحوي مكان خلنا جبين دونا إلى ما يريسو مدحوينا إلى ما يريس كوخ خلنجي والله بالله طلع دني عاورد الآن ما قرأت إلى ما يريسو على وجهنا أدي إياه إلى ما يريسو يغنين أرجال إيو رجاس إيو كروي إلى ما يريسو ده يغنين أنت يجعل إلى ما يريسنا يا والله بالله عجائب كوسعة هذا العويلة وحنا إنه آلي هذا 10 كاوقاتي يلم رئيسنا قولي سفي عن مركو وحنا يكون كرندليشن بر مركو لا همبليو رئيس الوزراء حسوب ورسول وين نادي هذه المدحوينة سي ماركتي هجرلية ولا شقايو وهفن وكرتله وأضايقله هذا قدومية أنيجا نوحنا تاجنا هاي دالكيجي إن بدباديو برشيد الصوماليد وانو الشيء مشرح وسير بانا هاي أدو إلهي قراني هاي ومدة الصوماليد هرتد وحنا قاعد مشاركة عن قادم دونو بقول كي بالتطبيقات يشن وحنا قد برشيد الصوماليد تيدا تبرت الدرن وشرح نمدي دي وسير نيمو إن شاء الله تعالى دي برشيد بلو ذاك ردا سيدا كبر أروجي مدح قرنك وشك ما ما هو قرنتا ورسده تقول من قرن بدن وصول تاجنا دفاع قرنكا قفكي ماركتي قفك بالهذا كنا مر بوليها إلا أبال مريو مركا وحنو مالانيا وقتكاغي إني قادي إسماعيلو إن تايم كراغي إنو يميدي وحنو مالانيا كل وزير كان وانو قارسيني وزير كان قلمدوك وانو قارسيني رئيس الوزراء وانو قارسيني وحنو لنا ninkaasi intaasoo dhan difaacay farmaajo mar haddii iska wareejiyay xilkii oo yidhi ra'iisul wasaare caawa waddanku leeyahay ninkaasi xilku saaran yahay annagana waxaanu ka codsanaynaa
ismaaciil boolio uu wasiirka xanaanada xoolaha usoo magacaabo haddaan ahay guddoomiyaha beelaha wiye isagana guddoonkiisa ana عجائب يا وقر كوسي كوسع ma maqlaysaa عادي يا marka ninka qofkii shaqaysta wuu helayaa abaalka wuu heli doonaa waddanka waad usoo maaragtay waad usoo dadaashay waddanka waad usoo maaragtay dagaalantay waddanka balaayo number ka difaacday habeen gaar haye habeen iyo dharaar gaar haya ayaad ahayd marka in lagu abaalmariyo waqtigeedii waa la gaadhay bay ila tahay aniga ahaan gaar ahaan maxamed muuse aad iyo aad baan arrintaa maaragtay meel walba uga sheegi doonaa وأنا قارسين دونا إلا يحفيز كاس رئيس الوزراء مع الوفد هذا كل جو كل وقت إن شاء الله قارسين دونا مع المدعويني إن شاء الله كل أول absolutely أرتما مو صوت رئيس الوزراء دي حبيت ما صوت هل حبا إيه صوت دعي ما نفيد نسوي ما كيتال ده ما مو صوت رئيا أدي بفرح سنة هي يبقى أدي بفرح سنة أي ساكي دوفر سو ما قرن marka afar maalmood bay la joogeen aad iyo aad waa wasiirkii dekedaha iyo ku-xigeenkiisii iyo shaqaalihiisii baa maaragtay la soo gaaray shirkadihii iyo dowladda Holland iyo Belgium aad iyo aad ayay noo qaabileen waxaan joognay 2 habeen Brussels 2 habeen Holland bay joogeen maasha Allah marka shaqadaas si fiican baan u qaban haddeerna dee kolley haddii dowladihii iyo maamul goboleedii ay aniga soo galeen aniguna aad iyo aad ugu sii gudbinayaa Ismaaciil wadee bay الله يعز قدومي أبغى ما سنتهي بريبان 6 سو إيمان دونا دو إلهي إنه ما قرأت بريت ولا أيام كفر قيد دونا رئيس وزراء نصب يشحن وماجية أنا قا سهلتها واحد شيء كل شيء جيا سيدا إيلتها عبد عيار تسيدا أي موقته إن نركتي لود وودجو مدحوين فرماجو يعني واحد نقوليس عيارتوي أيو نقوليا والله بالله نمبر 9 كذا ليا سوما قرد وصل أدي سيدا أنهم ملايو عيارتوي وين هو أكتاي وحوي إلى ماريس سوما وحوي إسقوا واحد أي صوب حكوا رئيس الوزراء مقعاب رئيس الوزراء مردين لمقعاب أنا وحي كلام دواكك أو إيش وين كون لقى بلعبة وإن إيش مدحوينه رئيس الوزراء مارتي الصحية وإن وزارة الصوت وزير الصوت مدة قادنيسا وحاصون لقى بقاله وحماشة يمدي مدة كردتي وعبارة سوا خصم برلمان كان ورقته إلا جاي وخصم ما دام وسووا بلغ هذا إن ورقته اللي عليه برلمان كنا قشك يقول دريتونا تاس أروح وقال وما سنتهي قدومي بريم بصقونا إن شاء الله جزاك الله waxay ilaahay mahadiisi ah wax badan waxaad ka cabaadeen hay'adaha gargaarka iyo beesha caalamka xirfadda beesha caalamka rag yaqaano ayaa isugu tagi doona wasaaradaha iyo ra'iisul wasaaraha ugu horeeya waa dad yaqaano la dhaqanka beesha caalamka qaabka loolama caamilo qaabka la isaga celiyo sharciyada loo cuskudo iyo qaabka dalka looga difaaco iyo qaabka la isaga celiyo siyaasadda inaysan waxaa soo bixi doonto 30 nin ama 50 nin oo farmaajo oo kala dalka badbaadin karaan xaqiiqi 50 nin wasaaradaha iyo ku-xigeenadoodii maximum waa 50 ilaa iyo madaxweynaha marka lagu daro waa 50 ilaa ruux waa 50 in labadaas qof dalka way badbaadin karaan hadiiba lagu xusho dad noocaas oo kale insha Allah taala gudoomiyaha arrimaha bulshada oo saacadaan asagana soo jeedo ayaa dhowr mar buu isoo wacay bal aan soo qabto walaalkay gudoomiyaha arrimaha bulshada runtii caaw dabaaldegaan ku jirnaa maxaa yeelay hurduma jirto waan dabaaldegaynaa gudoomiye salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله هل أنا بقى waxaa toos ugu bilowday waqooyiga waddanka Sweden dabaaldegii ra'iisul wasaarihii Soomaaliyeed ee cusub caaw la magacaabay soo dhawow waxa ku dari lahayd برنامجكم والله بسمع live way 500 qof ku daawanayso horta shacabka Soomaaliyeed oo kuwaan salaamaya sidoo kale dadiyay barnaamijka Ismaaciil oo ku salaamaya adigana waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda Hambalyo ruuxaantii wuxuu ku soo aaday ra'iisul wasaaraha xilli munaasib ah oo maaragtay nin walbana kartidiisa macnaha lagu ogaan karo
Soomaaliya waxay ku jirtaa xilli yani kala guur ah sidoo kale shaqooyin aad u tiro badan ay qabeen yihiin oo ay ugu horeyso xoreynta dalka maaragtay la dagaalankii COVID-19 waxyaabihii ka haray sidoo kale nidaamka doorashada dalka oo weli annaga shacabka Soomaaliyeed haddaan nahay aan ra'iisul wasaaraha uga fadhino in amnigeeni ahaa one man one vote ilaan adduunka ma ogtahay waxaa la yiri hadda ka hor nin boqor Ingiriis ah wuxuu iskugu yeeray wasiiradiisii markaas wuxuu yiri bisha soo socota waxaan rabaa inaan qabsado maaragtay Germany markaas ragga qaar afkay taageen waxay dheer ma dhici karto markaas wuxuu yiri impossible can be found only foolish man's dictionary suurtagal ma aha waxa kaliya qaamuuska doqomada sida darteed anaga shacabka Soomaaliyeed ay marnaba kama tanaasulin one man one vote wixii la doono maaragtay xariiqan dani iyo Axmed Madoobe waxaan rajaynaynaa ra'iisul wasaarahan inuu kartidii la yimaado dalkan uu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod sidoo kale nimankaan argagixisada uu dalka ka saari doono oo dadkan dhahayo 6 bilood dhiman iyo 4 bilood dhiman waxaas wax ka jira ma jirto hadda iyo prime minister cusub iyo barnaamij cusub iyo qorshe cusub iyo diilo cusub shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hadda ay shaqadu bilaabatay hadda ay rag rabtaa ninkii niyad jabsanaa soo kaco dalkeena sidii one man one vote aan u gaarsiin lahaynaa aan aragtay u soo istaagno waxaan rabaa inaan taariikh yar prime minister cusub aan iraahdo kulliba ninku waa reer Sweden Ismaaciil iyo groupkiina way maxaad u sheegaysaa waa maxaad ugu sheegayay bal wad ku soo bis hadaaba qarxisay ku soo ninku isku xaafadtiin waa macquul marka sidoo kale ninkan waa nin aqoon-yahan oo engineer master degree maaragtay jaamacad Sweden ka haysto sidoo kale ILO shirkad hay'addan ILO International Labour Organization senior officer ka ahaa sidoo kale head of program ka noqday sidoo kale wuxuu leeyahay yani khibrad aad u badan mashaariic aad u tiro badan oo dalka uu ka fuliyay kuwaas oo ku kacayso ilaa 60 milyan mashaariicda uu fuliyay waxaa ka mid ah mashaariic aad u tiro badan oo maaragtay infrastructure uu baydhabo ka sameeyay marka prime minister kan anaga kalsooni zaid u weyn ayaan ku qabnaa waxaan rajaynaynaa inuu karti iyo dadaal iyo wax walba la soo bixi doono shacabka Soomaaliyeed himiladooda ah one man one vote inuu gaarsiin doono hadduu ilaahay waana maaragtay uga fadhinaa sidoo kale waan u duceynaynaa waan hambalyeynaa waxaan leenahay maaragtay buuggaada maanta waa cadyahay insha Allah waxaan ka rajaynaynaa inaad taariikh cusub ku qoran doontid oo maaragtay Soomaaliya raggii soo maray ninba ma diiwaanka waxba ugu jira ragga qaar waxa ugu jira inay Soomaali laayeen dadka qaar waxa ugu jira inay dalkan burburiyeen dadka qaar waxa ugu jira inay hantidii dalkan national asset inay iibsadeen marka nin walba wuxuu ku qorto taariikhda ayaa maaragtay u taala annaga waxaan ku rajaynaynaa inay wax fiican kugu qormi doonaan sidoo kale waxaan halkaan uga jeedinayaa prime ministerka inuu soo xushto gole wasiiro oo tayo leh ra'iisul wasaaraha guushiisa 90% waxay ku jirtaa sida uu u soo xushto gole wasiiro sababtoo ah shaqadan wuxuu u wakiilan doonaa wasaarad uu wakiilan doonaa isagu ma qabanayo hadday gaashaandhig tahay wasiir gaashaandhig haddii maaliyad tahay wasiir maaliyadeed marka haddii si kasta adoo u dadaal badan aad wasiir xun soo xulatid tusaale wasiirka xanaanada xoolaha iyo biyaarada ninkan fashilmo kale haddaad soo celisid adiguna maaragtay ceebta uu ninkaas geysto ayaa maaragtay kugu soo maaragtay adiga mas'uuliyadda qaadan doona marka waxaan rajaynaynaa ninkan nin tayada way waa naqanaa asagana uu soo xulan doono gole wasaaro oo aad iyo aad u tayo badan oo insha Allah oo aniga ku jiro ku soo oo Ismaaciil ugu horeeyo Ismaaciil kulliba maaragtay nabadii nolol hadiiba maaragtay loo soo raftay oo loo soo jeeday ninka number 1 ku jira waa isaga u soo dhintay adduunkana dadka maaragtay kacaan walba dadkii u soo dhintay ayaa maaragtay xelalka iyo maaragtay darajooyinka lagu abaalmariyaa tusaale Ismaaciil hadduu qarankan u shaqeynayay asagoo aan mushahar la siin asagoo aan xil hayn
maxaad moodaa isagoo xil loo magacaabay dadaalka uu sii labalaabaya uu sii saddex jibaaraya marka waxaan leeyahay ismaaciil iyo ragga wadaniyiinta ah kolleyba maaragtay ismaaciil ayaa arrintaas aad u sii og inaad golaha wasiirada kusoo dari doonti si dalkan maaragtay ay u samata bixiyaan قدومي وعن كهربنا إلى iyo caawa noo raadi telefoonka ma arkino ra'iisul wasaaraha insha Allah iyo cidii xogeyntiisa kulli insha Allah ta'ala iyo gmail-dii CV-dii meelay loogu diri lahaa wax walbo adaan ka rabna bariin insha Allah barnaamij ka faahfaahsan aan sugu imaano insha Allah dadweyne aad iyo aad u mahadsan yahay shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego shacabo wadaniyiintiini u ololay insha Allah ta'ala waa iga dardaaran inaad laga bilaabo caawayto ra'iisul wasaaraha aad u duceysaan kulana talisaan wasaarado tayo leh inuu meesha keensado insha Allah ta'ala dalkiini waad aragtaan dhinac Emirates baa duulaan idinku ah dhinac Kenya oo sugayso ilaa farmaajo leh mar meesha muu ka tago ayaa duulaan ku ah dhinac beesha caalamka duulaan idinku ah dhinac waxa waaye dawladii weyneed oo Ethiopia la dhihi jiray intaasoo sano dagaalkii idinka dhaxeeyay baa idin hanqaltaagayso inkastoo ayada dhexdeedii maanta ito problem uu ka taagan yahay oo laga yara nastay waxaan rabaa shacabka inaan ku baraarujiyo ra'iisul wasaaraha keligiisii waxba ma qaban karee wasaarada iyo xukuumad baa wax qaban karo ra'iisul wasaaraha odayga dhaqameedka Soomaaliyeed fadlan adiga dantaada ha fiirin dalka dantiisa fiiri dalkan badbaado u baahan yahay dalkan wuxuu saaran yahay saylada kuwaan ku saaran yahay Soomaaliya maanta way qalan tahay wayna sagatay ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala badbaadiyay cadowga Soomaaliyeedna waa jabay caawayto aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ra'iisul wasaare oo galmudug ka soo jeedo in la keeno caawayto waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waay haddii laga dhigi lahaa qof goboladan soke ama muqdisho ka soo jeedo runtii waxa waaye saameyn weyn ma yeelan lahayn laakiin ra'iisul wasaaraha waa mudugtii rasmiga ahayd waay maana ta galgaduud waa gaalkacyo waa taqaani dadka ka dhasho oo ka soo jeedo ama yacni muxuu ahaa waa dad karti badan la waay ilaa xad sidaas daraaddeed marka waxaan leeyahay ra'iisul wasaare hambalyo talo waan ku siiyey taladeedana qaado xukuumad tayo leh baa loo baahan yahay ra'iisul wasiiradii horena weliba markii xilkoodii ugu dhammaaday dalka in laga masaafuriyo waay saraakiisha ciidan ee hore oo wixii markaas las yiraahdo dee waa yacni waxyaabo kale annaga waa fahmi karnaa saraakiisha ciidamada kuwooda wanaagsan iyo kuwooda xun waan fahmi karnaa insha Allah ta'ala laakiin markeedii bay noo ahaanaysaa ballanteeni waxa waaye mudane ra'iisul wasaare wasaarada tayo leh baa loo baahan yahay haddii dad horey loo soo arkay waxay yihiin soo fashilbay badan baa CV kuula imaan doona berito magarat haddii bulshada Soomaaliyeed aniga i doorato oo yacni jagadaas la ii dhiibo oo ra'iisul wasaarahayga ii garto madaxweynahayga ii garto nabadii nolol ay ii garato iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweynihii koonfur galbeed ay raalli iiga noqdaan shacabka Soomaaliyeed waxaan u ballan qaadayaa inaan tusi doono shaqo aan ayaga horey aysan u arkin insha Allah ta'ala oo transparency ah insha Allah ta'ala ayaan tusi doonaa kii hadda wasaaraddaas xanaanada xoolaha Soomaaliya meesha ay ku baktiday ay tahay oo dadkii xoolo la'aan xayawaanaadkii baaba'ayo dhirtii la xaalufinayo geed dambe inaan Soomaaliya laga goyn doono hadduu Ilaahay markab walba meeshuu tagaan ugu daba tagi doona kii dhuxul qaado insha Allah ta'ala waan soo qaban doonaa sharcigana la tiigsan doono Ilaahay idinkiisa aad iyo aad baad u mahadsantihiin ra'iisul wasaare all wasiirada oo horey xilka u hayay sida uu dhaqsiyaha badan in lala xisaabtamo xafiisyadan laga wada saaro ayagana inay musharaxiin ay noqdaan annaga oo kale ay noqdaan nasiibkoodii waxay helaan insha Allah ta'ala aad iyo aad baad u mahadsantahay 1,000 jeer hambalyaan ku leeyahay mudane ra'iisul wasaare soo dhawow insha Allah ta'ala teleefonkaagiina kolba waa la isiin doonaa gudoomiyaha arrimaha bulshada rayidka ee Soomaaliyeed Muqdisho jooga insha Allah ta'ala wakiil buu naga yahay wakiil buuxo ayuu naga yahay sidoo kale insha Allah ta'ala gudoomiyaha guud beelaha hawiye
gaar ahaan gobolka galmudug adiga aad u dhalatay asagana insha allah kolba waa kula soo xiriiri doonaa anigana waa soo socda insha allahu taala laga bilaabo berito safar baan soo ahay safar salaamaan idin leeyahay insha allahu tacaala ballanteena waa muqdisho aad iyo aad baad umahadsantihiin shacabka soomaaliyeed horey baana loo soconayaa aranjan warkeediina meeshu ku dhammaaday khalaas waa maxaa yeelay faarax guloley muxuu yidhi ookiyaalihii aranjan arki lahaa baa la magacaabay xaqiiqada idin sheega aniga wallaahi o bilaahi tallaahi ficlada qolqoloocan aranjan qofkii indho u yeelan lahaa caawaa la magacaabay taas maskaxdiina geliya wasiirada imaan doonan insha allah aniga iyo qof aniga iga sii xageeyaa noqon doono aad baad umahadsantihiin docda waa xaggeeni walaashay luujona waan salaamaya marwe luujo ayaa hawshaas ayadan insha allahu taala u xil saaran hadde insha allahu tacaala waxaan salaamayaa dhammaan madaxda qaranka soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka muudey dhammaantiini ra-iisul wasaaraha isku duubni waxaan idin leeyahay hambalyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh